الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan halkan maanta u fadhinaa inaan heshiis ay kala saxiixdaan wasaaradda maaliyadda iyo qolada la yado PricewaterhouseCoopers oo kala shaqeynaysa qaybta xisaabaadka guud iyo wasaaradda maaliyadda kala shaqeyn doonta habka maareynta khasnada iyo sida miisaaniyadda loo dhaqan gelinta miisaaniyadda iyo xisaab celinta xisaabaadka oo sidii loo tayeyn lahaa waxyaabaha ayay kala shaqeyn doonaan. heshiiskaas aanu saxiixi doonaa insha Allah. waxaanu ka rajaynaynaa maadaama ay shirkadii heshiiska aynu la saxiixanaynay iyo xisaabaadkii guud iyo wasaaraddii agaasimihii guud iyo Maxamed Samataro khabiirkii BFM-ka كيسي أو حسابية كحجينكي حسابيها جود إنه ما أنت إيه بحشة أو واحدي أقاسمه حسابات كوسارة المالية ده إنه ما أنت هشيس كاسدا إنه آخرينه إنه كل صحيحنا تبيدنا إنه رقنقل كيسة سدا إنه وذا شقينه وذا شقين وناكسن كنتي عدي أين رشقين سين إنه وحكبر إنه بينه بدينا إنه وحكبر إنه إنك أنا وحنا نجبرته إنكنا وحوالي نجبرنا يا إنكنا وحبين برنا تبيدنا كنتي ساسي يقدون كل ساس بوحكو قاري هي كل بقى خبرة الوليري هي بعض كلا جبرتها تبيدنا خبرة أسد الناس يكون لسه مكسي مسك حد فرم مثلا نوح كلام كسي درس بريادنا لا جبرته إن شاء الله مركا واحد في لنا إنه شركة دانا وذا الشقين ونكسين يلانو إنه ما أنت هشيس كاينو سحنا ونقضو متهيج على تيا يشاء ودن كنا كشقية ووحين نقص وكل يوم وحبينا قد من إن شاء الله. سي وزير كماليد مروة سمسم وقد واجد سي وحوي وحي كم بيتهاي هؤلاء هذا المغرب جستولا هذا هبين تماليد وزارة المالية ده أي كم بيتهاي مركا قريب كم بيدا وحوي إن الحوجيو إن حسابات كيو سمين تبجت مركا كمبنيga cusub maanta in heshiiska la saxiixanayno water price wuxuu naga taageeri doonaa oo khubara kambaniga ka socda ayaa waxay noqonayaan inay la shaqeeyaan oo dhex fariistaan xafiisyada xisaabiyaha guud iyo xafiiska budgetka iyo qorsheyntaba labada khubaradaas waxay naga la shaqeyn doonaan si loo xoojin lahaa sida wasiirka ka dhawaajisay hab socodka xisaabaadka iyo muxuu ahaa dakhli ururinta budget samaynta howlahaas ay nagala caawin doontaa waxayna ka mid tahay qaybaha ilaa 10 qaybood 8 qaybood ay ka kooban yahay muxuu ahaa dib habeynta maaliyadda ee wasaaradda maaliyadda qayb ka mid ah weeye marka waxaan insha Allah si wasiirka dhawaajisay wasaaradahan iyo xisaabiyaha guud iyo qolada agaasimayaasha budgetka iyo qorsheynta iyo xisaabaadkaba waxaan diyaar u nahay inaan hawsha si ay tawfulino aan la shaqeyno kambaniga ka faa'iideysano oo aanu diyaar baan u nahay inaan hawsha ka qayb qaadano waana ku mahadsan yihiin muxuu ahaa dadkii soo qaban qaabiyay hawshan waxa annaka maanta farxad weyn noo ah in muddo badan inagoo ku soo jiray qabanqaabada nidaamka xisaabeynta maaliyadda ee la yidhaahdo BFM-ka waxaanu imika taaganahay waqtigii laga guureeyey diyaarintii ee loo guureeyey dhaqangelintiisii marka qayb weyn oo ka mid oo tanaynu maanta agreementkiisu wasiiraddu saxeexayso inuu inoo bilowmay waxaanu sidaa waxba ku dari maayo sidaa wasiiraddu u sheegtay iyo DG-gu waxa weeyaan inaku sidaynu iminka dhaqangelintaasi uga faa'iidaysan lahayn si mug leh annana wixii dabaka riixa waan u diyaarnay sidaan markii horena uga soo qayb galay diyaarintiisa oo kale marka waa mahadsantahay. PricewaterhouseCoopers, we are indeed delighted to be part of this initiative by the government of Somaliland to increase the efficiencies, the effectiveness of the public financial management. So we are indeed looking forward to working with you. We appreciate all the efforts that have been done so far in getting this process to where it is right now. And we want to thank the government of Somaliland for taking this progressive initiative, and we are looking forward to working with you. Thank you very much.